kulanti wacan daawadayaal kuna soo dhawaada war wixii caalamka inaga soo gaaray warka waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Cali Maxamed Yare qodobada wararka maanta aan idin hayana waxa ugu dooron Ra'iisul Wasaaraha dalka oo sheegay in cadaaladda la hor keeni doono kuwii dhibaateeyay Egraan Tahliile xilli uu ka qayb galaya hadal jeedinta sanatarada gobolada waqooyi ee dalka wasaaradda amniga Jubbaland waxa ay faahfaahin dheeraad ka bixisay qaraxii shalay ka dhacay magaalada Kismaayo madaxweynaha dalka Tanzania waxa uu waraaqaha aqoonsiga safiirnimo ka gudoomay safiirka cusub ee Soomaaliya dalkaasi u fadhiisan doono akhbaaradka caalamka warkayaga aad ku daawan doontaan waxa kamid ah ra'iisul wasaaraha Israa'iil oo digniin u diray dalkaasi Iran qadar yar oo adeega bulshada ah kadib ayaanu dib isugu soo laaban doonaa ogeysiis waxa la idin ogeysiinayaa dukaanka Doctors Furniture in maamulkii hore laga bedelay wuxuuna diyaar idin kula yahay alaab qiimo dhimis lagu sameeyay tayo leh ribana aan saarnayn wuxuu dukaamanka kale ee alaabaha iibiyo uu kaga duwan yahay hadda gado hadda qaado ku soo dhawaada dukaanka Doctors Furniture ogeysiis muhiima dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolada Sool, Cayn iyo Nugaal waxa la ogeysiinayaa in Dr. Cali Macow Aweys oo ah dhakhtar Soomaaliyeed kuna takhasusay cudurrada guud gaar ahaan xanuunada ku dhaca uur ku jirta xanuunada haweenka iyo neerfaha uu magaalada Garowe idinkaga furay xarunta International Hospital. Dr. Cali Macow Aweys wixii ka dambeeyay 17 bishan September waxa uu ka howlgalayaa xaruntiisa international ee magaalada Garowe wuxuu halkaasi Dr. Cali Macow Aweys idinkugu diyaariyay isbitaal weyn oo loo dhameystiray qalab caafimaad oo tayo leh bismillaahir rahmaanir rahiim halkaan waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed qaasatan reer Puntland Sool Sanaag iyo Cayn Somaliland Ogaadeniya Galmudug Hirshabeelle meelahaas oo dhan inaan u sheego in magaalada Garowe wixii 17 bishan ee sagaalaad bisha September 17keeda wixii ka bilaabatay inaan ku sugnahay magaalada Garowe hadda alla idmo marka waxaan leeyahay ummadaas haddii qofkii noo baahan waxaan leenahay ku soo dhawaada xaruntayda mataqaana International Hospital Garowe ku soo dhawaada ayaan leenahay marka qof alla la qofkii danaynaya waxbaan kala gaaraynaa noo imaadaan idin leenahay إن شاء الله. إسبيتالكو waxa uu ku yaalaa laamiga isku xira Sagal iyo Flembis wuxuuna bidix kaga yaalaa shirkadda biyaha Qurquro dhakhtarku waxa uu joogi doonaa muddo kooban wixii faahfaahin dheeraad ah waxaad kala xiriiraan taleefanada iyo adreeska shaashada idinkaga muuqda Ra'iisul Wasaaraha dalka oo sheegay in cadaaladda la marsiin doono kuwii dhibaateeyay Egraan Tahliile xilli uu ka qayb galaya hadal jeedinta musharaxiinta sanatarada gobolada waqooyi ee dalka Soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxa inoo eegaya wariyahayaga Axmed Xasan Ibrahim oo inooga soo warama magaalada Muqdisho waxaa maanta tendhada afasiyooni ee magaalada Muqdisho ka dhacday hadal jeedinta musharaxiinta aqalka sare ee gobolada waqooyi ee Soomaaliland kuwaas oo ku tartami doona 12 kursi ee gobolada waqooyi ay ku leeyihiin aqalka sare ee dawladda Soomaaliya goobta hadal jeedinta ay ka socotay ayaa waxa ku sugnaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ku xigeenkiisa ergooyinka wax dooranaysa guddiga doorashooyinka aqalka sare ee gobolada waqooyi iyo xubno kale oo korjoogto ka ah kulankaasi xubnaha musharaxiinta ee u tartamayay aqalka sare ayaa khudbado kala duwan ka soo jeediyay goobta ay munaasabadan ka socotay waxaan codsanayaa haddii aad doorataan waxaan filayaa inaan wax fara badan oo hore inoo dhaafay aynu ka shaqayn doono oo baarlamaanku uu noqon doono baarlamaan arrimahan sheegayana kaalin ka qaadan kara waa ogtihiin 10 bilood sidaan idinla shaqeeyay waxaan ballan qaadayaa 4 sano soo socdana sidii iyo si ka badan markaan idinla shaqeynayay imaamaydaan doorane maanta hadday doorataan inaan idinla shaqeeyo mar kalaan ballan qaadaya waxaan kaloo halkan ka ballan qaadayaa ergooyinka ku lamaan odayaasha
iyo cuqaasha nin waliba inaan abaalkiisa u gudi doono qof qof iyo qoys qoys iyo saaxiib iyo group group I will never let you down wax kaliya baan idinka baahanahay markaa magacayga aragta inaad calaamadda u tigta ku jiida intaasu baan idinka baahanahay dadku waxay ka maalaan kolba siday u daajaan haddaad xoolaha raacdidood meel wanaagsan geysid caano badan ayaad ka heli doontaa dawlad waxaa samaysa dad waxaa sameeya isku kalsoon cidnaba aanu harabran ilaahay mooyaane ayuu dadaalkaygu yahay ila garab joogsada innakuna waad salaamantihiin soomaaliyana ha noolaato ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo khudbad dheer halkaasi ka jeediyay ayaa waxa uu soo hadal qaaday doorashada la filayo in dhawaan ay ka dhacdo dalka Soomaaliya iyo khilaafka u dhaxeeya isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale kiiskii Ikraan Tahliil oo uu sheegay ciddii ka dambeysay dhibaatadeeda in cadaaladda la horkeeni doono maanta Ilaahay ayaa mahadleh oo fursad ii siiyay inaan ka soo qayb galo doorashadii Somaliland ee aqalka sare hadalgelinteeda runtii qof kasta oo Soomaali ah meel kastuu joogo gudaha iyo dibad arrintan fursad ayay u tahay waxayna calaamad u tahay hannaanka doorashada oo caddaynayso in uu dalku aaday doorasho maantay Soomaali kale idin eegaysa Allah subhanahu wa ta'ala ayaa idin eegaya marka waxaan idin leeyahay cawada qofkii hooyanayo oo aakhiro u yanayo la yaqaano cadaalada lagu qabaa qof kastaan ku xisaabtamo in ay sidayso meel lagu xisaabtamayo dhammaanteedna taasaan wada jecel haddaan intaa ka gudbo xaaladda dalka alxamdulillah maanta meel fiican ayuu marayaa doorashaan ku jirnaa carabinka isugu dhow khilaafaad isku yimaadaan laakiin wax weyn ma ahan wax weyn ayaa loo qaadan in wax kastoo waxaa ka muhiimsan xasiloonida dalka nabadgelyada wada noolaanshaha shacabka Soomaaliyeed waxaan farayaa inay ilaaliyaan xasiloonida cadowga shabaabna uusan ka soo horeysanin waxa tuhmada abuurayo ama qalqalka abuurayo ama iskaliishanka samaynayo oo xagga siyaasadda wax weyn oo siyaasadda isku hayo mada jirto shacabka Soomaaliyeed waxaan u xaqiijinayaa inaan marka sii taaganahay cadaaladda dhammaanteen cadaalad ayaana baaqdo walaashay gabadheeni Ikraan Tahliil cadaalad iyo helisa kuwii dhibkuu geystayna ama maanta aan helno ama berri aan helno insha Allah gacanta shacabka Soomaaliyeed way soo geli doonaan waana laga xisaabtamaya haddii Ilaahay qaal ka noqdo laakiin qalbigeena khayr istaaga hawsha waa lagu jira jiraa maxkamadda militariga ayaa loo xil saaray go'aankeeda ayaan sidaynaa dhammaan howlaheedana inay wadato ayaan rajaynayaa horena waa u faray haddana waa farayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay howlaheeda u bilowdaan cadaaladdaas ayaana wada jaawada barasaafka gobolka saaxil ayaa kormeer ku tagay xarunta gaadiidka ee baabuurta xamuulka qaada oo maalmihii ugu dambeeyay khilaaf xoogan uu ka taagnaa wariyahayaga Mahad Faarax Cabdullaahi ayaa warbixintaasi eegaya barasaabka gobolka saaxil Axmed Maxamed Xaashi ayaa booqday xafiiska iskaashatada gaadiidleyda xamuulka qaada ee magaalada Berbera oo muddooyinka u dambeeyay ka jira khilaaf hoosaad kaasi oo hakad geliyay shaqooyinka xafiiskaasi gudoomiyaha oo kulan la qaatay mas'uuliyiinta xafiiska gaadiidleyda ayaa sheegay inuu ku amray shaqada halkeeda hore laga sii wado inkastoo uu kulankaasi ka maqnaa gudoomiyaha ururka gaadiidleydu horta gaadiidleydu imanoo saakamay soo caban laakiin waxaa jirta cabasho jiitamaysay oo shaqadii meeshuba ay istaag noqotay marka horta waxa ugu muhiimsan aan ugu imidoon aniga iyo tariiqeedku u soo booqanay oo xafiiska u nimid in horta shaqadu socoto systemkii baabuurta lagu maamuli jiray ee saxda ahaana lagu maamulo marka waxaan qolada maamulka kala hadalay wixii strike ee shaqada joojinaya in meesha ka saaraan qolada gaadiidleyda arrimo hoose oo kale oo sida qaabka loo kala qaadanayo baabuurta Itoobiyaanka iyo baabuurta Somaliland ayaanu iyagana ka wada hadlaynay
waxa weeyaan markuu markab yimaado uun in la isku qabsado halkan hayla timaado maaha laakiin system baa hore heshiis baa loo galo system baa jiray systemkii sidii loo fulin lahaa loo raaci lahaa qolana u qadi lahayn ayaan iyagana ka wada hadlaynay iyagana si fiican baan isla qaadanay gudoomiyii ururka meel uu ku maqan yahay ma garanayo anu maamulka oo dhan baan maanta la wada ballamay horta 3 maamul oo ku-xigeenkii iyo xogayihii iyo qasnajigii baanu meesha ugu nimid cidda joogta un baanu shaqadana ka rabnaa inay socodsiiso sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka iskaashada gaadlida Soomaaliland Isxaaq Ibrahim Maxamuud oo isna ka hadlay kulankan ay gudoomiyaha la qaateen ayaa sheegay in fulinayaan wixii lagu heshiiyay gaadlida waxay ka cabanayeen bariyahanba hawlo taagnaa marka waxaan isla soo qaadanay barasaabka in hawlaha cabashada gaadiidka taagan inaanu xalilno shaqadiina ana hadii joogo gudoomiye ku-xigeenkiya waan sii wadaynaa wixii shaqo naga qabiyana waan dhameystirnaa arrimaha cid aanu soo kala dhawaysanay ma jirto dadku waa isugu kaayamid mahad faarax cabdilaahi telefishinka caalamiga ee Kalson TV magaalada Berbera madaxweynaha dalkaasi Tanzania waxa uu warqadda safiirnimo ka gudoomay safiirka Soomaaliya u fadhiisan doona dalkaasi Tanzania faafahinta warkaasi waxa inoo eegaya wariyahayaga Maxamed Deeqa Macalin Mustafa danjiraha Soomaaliya ee dalka Tanzania Marwa Sahra Cali Xasan ayaa warqadaha aqoonsiga danjirinimo waxay ku wareejisay madaxweynaha Jamhuuriyadda Midowday ee dalka Tanzania Marwa Samiya Suluha Xasan kadib munaasabad lagu qabtay aqalka madaxtooyada oo ku yaala caasimadda dalkaasi intii lagu guda jiray munaasabadda warqad gudbinta waxay danjira Sahra Cali Xasan la wadaagtay madaxweynaha Tanzania fariin salaan ah oo ay ka siday madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoona carabka ku adkaysay siday uga go'an tahay inay horey u sii wado xoojinta xiriirka iyo iskaashiga laba geesoodka ah ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Tanzania si horumar iyo barwaaqo ay u gaaraan labada dal ee saaxiibaha ah dhankeeda madaxweynaha Tanzania Samiya Suluha waxay soo dhaweysay safiirka cusub ee Soomaaliya iyadoona u rajaysay inay ku guuleysato howlaha loo egmaday si ay u xoojiso xiriirka taariikhiga ah ee qotada dheer u dhaxeeya labada dal Maxamed Macalin Mustafa Kalson TV dowladda Kenya waxa ay shaacisay in xubno ka tirsan al-shabaab ay ku geeriyoodeen qaraxii ka dhacay deegaanka Lamu ee dalkooda faafahinta warkaasi waxa eegaya Maxamed Idle ugu yaraan 15 qof oo laga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab ayaa dhintay kadib markii gaari ay wateen uu dulmaray meelan dhulka lagu aasay kaasi oo marayay meel u dhow xadka Soomaaliya ee la wadaagta dalka Kenya isagoo la hadlayay Daily Nation afyeenka ciidamada difaaca Kenya KDF ee Wanjiku ayaa xaqiijiyay in dhacdadan ay dhacday abaar 9kii barkii subaxnimo maalintii Isniinta inta u dhaxaysa Sareeraha iyo Ras Kamboni Colonel Wanjiku ayaa sheegay in meelaan dhulka lagu aasay ay wadada dhigeen koox kale oo ka tirsan ururka al-shabaab kahor inta aysan xubno kale oo ka tirsan ururkaasi dulmarin gaariga ayaa qarxay oo gubay dhammaan dadkii saarnaa waxaan xaqiijin karaa inay dhinteen 15 ka tirsan ururka al-shabaab waxay ahaayeen laba kooxood mid kamid ah kooxaha ayaa wadada dhigay meeno si ay ula eegtaan ciidamada Kenya balse kooxda labaad oo aan ka warqabin meenada wadada ku jirta ayaa dulmaray sidaas waxaa yiri Masar Wajinku wuxuu si raacay haddii cadowga dhinto taasi waa inoo muhiim dadka deegaanka yaalan iyo jabinin hay-adaheena amniga waxaa ka go'an inay ilaaliyaan ammaanka shacabka iyo hantidooda ciidanka la dagaalanka argagixisada KDF ayaa waliba wada baaritaan la xiriira xaqiijinta ammaanka iyo saarida meenooyinka ay al-shabaab wadooyinka galiyeen saraakiisha ammaanka ayaa shacabka ka dalbaday inay istijiyaan oo ay la shaqeeyaan laamaha ammaanka Maxamed Ile Kalson TV Nairobi jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Netherland waxa ay ka tacsiyeen geeridii ku timid Allaha u naxariistay majaajilistihii caanka ahaa ee Cabdi Muriidi Dheere Ajakis oo shalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho faafahinta warkaasi waxa dalka Holland inooga soo diray wariyahayaga Bashiir Jilaal Barrow geerida majaajilistaha caanka Cabdi Muriidi Dheere Ajakis ayaa waxaa aad looga dareemay dalka Holland gaar ahaan magaalada Isvoorya nawaaxigeeda jaaliyada Soomaalida ee ku nool dalka Holland ayaa waxay tacsi hawada u mariyeen qoyskii ehelada uu ka geeriyooday Allah u naxariistay majaajilistaha Cabdi Muriidi Dheere Ajakis oo ku geeriyooday dalka Soomaaliya caasimadda magaala madaxda Muqdisho jaaliyada oo iskugu soo baxday xarunta jaaliyada ayaa waxay tacsi hawada u mariyeen dhammaanba qoyskii ehelada uu ka geeriyooday Allah u naxariistay Cabdi Muriidi inuu samri
iyo iimaan uu ka siiyey dhammaan yabaadii isla soo shaqeeyeen ee saxaafadda iyo qeybaha kale fanka. sidoo kale tacsitaas lamid ayaa waxaa dirayay gudoomiyaha jaaliyadda soomaalida isfoola cabduqaadir cali nuune isagoona sheegay cabdi muriidi dheere ajakis in wax badan uu ka yaqaano xagga madadaaladiisa iyo fankiisa uuna ahaa nin markaasi furfuran dadkana ka qosliya ay marka uu tv-ga kasoo dhex muuqdo ayuu yiri gudoomiyaha jaaliyadda soomaalida isfoola cabduqaadir cali nuune. sidoo kale qeybaha kale jaaliyadda ayaa ka hadashay waxaana ka mid ah bismillaahi raxmaani raxiim inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. halkan waxaa ugu tacsiideynaya marxuum maanta ku geeriyooday cabdi muriidi dheere ajakis anagoo ku hadlaya magaca jaaliyadda ummadda soomaaliyeed oo ku dhaqan dalka Holland. waxaan ilaahay ugu baryayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay inuu naxariisto eheladii iyo qaraabadii uu ka tegana sabir iyo iimaan ilaahay inuu ka siiyo. meelo badan oo ka mid a dalka Holland ama Netherland ayaa laga dareemay geerida cabdi muriidi dheere ajakis ayagoona iskugu tacsiyeynayeen inuu ilaahay qabrigiisa u waasixiyo jannatul firdaws al-a'la ilaahay ugu bishaareeyo cabdi muriidi dheere ajakis oo in badan oo ka mid qurba joogtan aad u xasuusan doonaan. Bashiir Jidaal Barrow, Kalson TV, Holland. wasaaradda amniga Jubbaland waxa ay faahfaahin dheeraada ka bixisay qaraxii shalay ka dhacay magaalada Kismaayo. faahfaahinta warkaasi waxa inoo soo diray Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxiim oo inooga soo warramay magaaladaasi. faahfaahin dheeraad ayaa waxa laga helayaa khasaaraha ka dhashay qarax nooca miinada oo xalay ka dhacay magaalada xeebeedka Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose kaasi oo geystay khasaare isugu jira dhimashyo iyo dhaawac. qarax ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay xeebta Qoryoole ee xaafadda Farajano oo ka tirsan isla magaaladaasi. afyeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Jubbaland mudane Jaamac Axmed Cali Joofane oo faahfaahin ka bixiyay qaraxaasi ayaa sheegay inay ku dhintaan 2 ruux oo rayid ah halka 7 kale oo 3 ay ka mid yihiin askar ay ku dhaawacmeen. Jaamac ayaa sidoo kale sheegay inay haatan wadaan baaris ku aadan qaraxaasi isla markaana ay soo gudbin doonaan natiijada ka soo baxda howlgalka ay wadaan ciidanka. muddooyinkii la soo dhaafay ayaa waxaa magaalada Kismaayo ka dhacay falal lid ku ah amniga kuwaasi oo u badan qaraxyo iyo dilal qorsheysan oo geystay al-shabaab. Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxiim, Kalson TV, Muqdisho. mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda ganacsiga Somaliland ayaa kulan la qaatay guddi hoosaadka wasaaradda ganacsiga Somaliland. faahfaahinta warkaasi waxaa inoo soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan oo magaalada Hargeysa inooga soo warama. guddi hoosaadka maaliyadda ganacsiga iyo dhaqaalaha ee golaha wakiilada Somaliland ayaa waxa uu kulan la qaatay mas-uuliyiinta wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska. kulankaasi oo warbaahintu dibadjoog ka ahayd ayaa markii uu soo afmeermay waxa warbaahinta si wada jir ah ula hadlay gudoomiye ku-xigeenka guddida maaliyadda dhaqaalaha iyo ganacsiga golaha wakiilada Somaliland iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska Somaliland Maxamuud Sacad Saajin. waxaana ka mid ah hadaladoodii ay kaga warbixinayeen kulankan ay wada qaateen. kulankan wuxuu ahaa maadaama aan anagu cusubnahay oo dalka ay ogtiin doorashadii May 11keedii dhacday inay wakiilo cusub la doortay in hay'adaha ama lana shaqeyno ama aanu wada soconno ama aanu la xiriirnaa inaanu isbaranno si aanu hadhow meel uga wada qaadi karayno. kulankan intaasuu daaranaa isbarasho iyo fahanka shaqada qaranka iyo xaaladda guud ee ganacsiga dalka. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa imaatinka ay yimaadeen iyo sida aqoontu ku jirto oo ay u sharaxeen ganacsigii dalka. wixii kale insha Allah tacaala kulamada guddidu waxay u qaabmaysan doontaa in ay raacdo marka ay bilaabanto shaqooyinkii golaha wakiiladu hadday tahay xeerdejin iyo hadday tahay dabagalka. marka kulanka guud buu ahaa sida uu gudoomiye ku-xigeenku idin sheegay. golahu waa golo cusub annaguna waxaanu eegbannahay ganacsiga dalka. marka waxa maanta aan isku imanay wuxuu ahaa marka horeysa isxogwarsi iyo isbarasho. wixii ay la weydiiyeenna waan uga jawaabnay waanan moogtahay run ahaantii si fiican bay noogu dhacday. waanan moogtahay kii u horreeyey mana kala maarmo baarlamanka iyo dowladda
intada kale mugta fulintu had iyo jeer waxay u abuuran yihiin check and balance in wixii khaldameen la toosiyo wixii saxana mugta la isku raaco marka si fiican baan mugta wada hadalnay si fiican baan wada sheekaysanay iyaguna way cusub yihiin annaguna waxa weeyaan waajib bay nagu tahay in mugtahay aan waxay ay u baahdaan la xidhiidha dhaqaalaha waddanka iyo ganacsiga iyo umuuraha inaan ka siina wixii xog waran loo baahdo badeecadaha waddanka way qaaliyoobeen aad leedahay dibad baan ka keennaa ma beeranno waxay ku xidhan tahay kolba qiimaha dibaddu siduu yahay waxaana ogsoonaada inta dambe waxa dhacay waxyaabo badan ka warhaynay containerskii wax lagu soo qaadan jiray ee $2,000 lagu keeni jiray dhowr iyo $10,000 bay marayaan marka sidaa ay dhacdo dee badeecaddu way qaaliyoob ninka badeecadda keenay imika waxaan qabaa macaashka ugu yar inay helaan baabishtari marar ay sida marka badeecaddu aad u jaban tahay macaash bay helaan macaashka ugu yar bay helaan mana odhan karno annakoo suuqa waan ku jirraadeen laysa kulma daba joognaa suuqana waan ku jirraa waan ognahay wuxuu ku jooga dadka ma odhan karno ku iibiya wax qiimaha soo sirtee ka yar saasay u dhacday koontaynada cilkaa baray dad baa leh arrimo bolotigiisa caalamka jira koontaynada reer galbeed baa leh innaguna jaynaan xaggeeda u kacan dee waa lagu qaaleeyey dee waa inaan waxa bixinaya ka isticmaalaya badeecaddaa bixinaya marka kulankan ayaa waxa uu ku soo beegmaya iyadoo uu korkac ku yimi maciishada. Maxamed Cabdiraxmaan, Kalson TV, Hargeysa. wasiirka wasaaradda maaliyadda dalka oo ka qayb galay barnaamij looga hadlayay sida ugu dhaqsiyaha badan isla markaana looga cafin karo dalka Soomaaliya deymaha caalamku uu ku leeyahay xilli Soomaaliya 31 sano dagaal sokeeye halakeeyeen. Fafaahinta warkaasi waxa inoo eegaya Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxiin. shir dhinaca khadka internetka ee aalada Zoom-ka una dhaxeeyay mas'uuliyiin ka tirsan bangiga adduunka iyo IMF-ta iyo wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa furmay. shirka ayaa waxaa looga hadlayay dib u eegista lagu sameynayo wixii ka qabsoomay barnaamijka ECF ee hanaanka deyn cafinta Soomaaliya. shirka ayaa muddo 7 ah ee uu socdo sidoo kale diiradda lagu saaraya saameynta COVID-19 ee dhaqaalaha Soomaaliya iyo qaabkii wax looga qaban lahaa. wasiirka wasaaradda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in ay si wadajir ah dib ugu eegayaan dhameystirka shuruudihii ugu dambeeyay ee hanaanka deyn cafinta. tani waa fursad weyn oo inoo ogolaanaysa in aan adduunka kala doodno fursadaha horumarineed ee Soomaaliya, ayuu yiri wasiir Cabdiraxmaan Beyle. Soomaaliya ayaa 4 sano ee la soo dhaafay waxa ay dadaal ugu jirtay sidii looga cafin lahaa deymaha ay ku leeyihiin qaar ka mid ah dalalka caalamka, iyadoo dawladaha qaar ay cafiyeen kuwana ay dhawaan cafin doonaan. Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxiin, Kalson TV, Muqdisho. waxaa lagu soo waramayaa in dagaalo ay ku dhex marayaan ciidamada dawladda iyo al-shabaab deegaano hoos yimaada Bakool. waxaa inoo eegaya faahfaahinta warkaasi Axmed Xasan Ibraahim. dagaal u dhaxeeya ciidanka dawladda Soomaaliya iyo xubno ka tirsan al-shabaab ayaa waxa uu ka dhacay degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. dagaalkaas waxa uu yimid kadib markii al-shabaab ay weerareen saldhigga ciidanka dawladda ee degmada Xudur, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal xooggan oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. dad ku sugan degmada Xudur ayaa warbaahinta u sheegay in dagaalku uu aad u cuslaa markaana uu socday muddo ku dhow saacad, waxaana lagu soo waramayaa in ciidanka dawladda Soomaaliya ay si rasmi ah isaga caawiyeen ciidankii ka tirsanaa al-shabaab ee halkaasi soo weeraray. saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa dhankoodu waxa ay sheegeen inay iska difaaceen weerarkii kaga yimid dhinaca al-shabaab, isla markaana dagaal kooban oo ka dhacay ay ku gaarsiiyeen jab ama khasaare xooggan. degmada Xudur ee gobolka Bakool ayaa waxay ka mid tahay degmooyinka u go'doonsan
al-shabaab waxaana dadka ku nool ay wajahayaan dhibaatooyin dhanka nolosha ah. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. rabbi naxariistii jannaha ka waraabiye hal qof ayaa ku nafwaayey shil baabuur oo ka dhacay kantaroolka dhinaca bari ee gudaha magaalada Gabiley. shilkaasi ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay dhalinyaro kale waxaana shilkaasi khasaaraha nafeed ee isugu jira dhimashada iyo dhaawaca ka warbixiyey taliyaha ciidamka nabadgelyada wadooyinka gobolka Gabiley laba xidigle deeq xaashi guuleed iyo barasaabka gobolka Gabiley Cabdikariin aadan xaaji diiriye oo warbaahinta la hadlay. goor dhaweyto oo hal qof ku dhinteen samariye imaam baan leeyahay dhamaantii eheladu ku dhintay qaraabadeedii samariye imaam baan leeyahay inta kala dhaawacana ilaahay caafimaad sareecana ilaha siiyo. shilkaas waxa sababay hal taayir oo taayir baa qarxay kale soo waajibtay baaristuna way socotaa. waxa maanta abaaro 10kii subaxnimo na soo gaaray shil gaari oo ka dhacay degmada Gabiley kaasi oo waxa na soo gaaray 5 qof. 5 qof markii horeba isagoo meydabuna soo gaaray Allah ha naxariisto. qoyskiisana waxaan Ilaahay uga rajaynaynaa inuu samir iyo iimaan uu ka siiyo. 4 kale qof oo ku jira ninkii darawalka ahaa gaariga waday waxa lagula tacaalayaa cisbitaalka qaybta emergency ama adeegga degdega ah. dhaawacoogu culus yahay oo qaarkood jajabaa jira laakiin imika intii xaaladii degdegii ayaa u socda in maxaa la dhahdaa loo wadaa. waana wada stable intooda badan imika ka gaari oo sababay taayir u qarxay gaariga waxaana ku dhaawacmay 5 qof hal qofna uu dhintay isagoo meeyda cisbitaalka la keenay 4 qof tacaalaya emergency-ga si xaaladooda loo dajo. shilka la sheegay baa dhacay shil baabuur baa dhacay taayir baa u majaray maxaan ku raay qarxay baa keenay qof baa nin baa ku dhintay. sabiriye imaan baa leenahay eheladii iyo asxaabtii iyo qaraabadii iyo dadkii uu ka geeriyooday. 4 qof ee dhaawacay dhakhtarka lagula tacaalayana ilaahay ha caafiyo ilaahay ha u booga dhigo. darawaliinta fariintaan u dirayna waxay tahay gobolkan shilalku aad iyo aad bay ugu badan yihiin. waxaan isleenahay darawaliin xumaa keenaysa. darawalku deenu khibrad lahaadaa wanaagsan inuu liisankiisii wataa wanaagsan. horeba waanu sheegay sidaan warbaahinta uga sheegay 32 baabuur baan habeen meel isugu keenay halkaa Wajaale hal liisan baan ka waayay. maxaa lagu aaminayaa darawalka markaa inna ilaahi raajicuun kullu nafsi daa'iqatul mawt. shil baabuur ayaa ka dhacay abaara 10kii subaxnimo istabta Gabiley ee degmada Gabiley ee Galooley. shilkaasi 5 qof baa saaraa 5 qof gaariga waa la dhacay hal qof baa ku dhintay 4 kalena waa dhaawacmeen. waxaan leenahay ka dhintayna ilaahay ha u naxariisto kuwa dhaawacana ilaahay ha u boogadhayo. waa u ducaynaynaa in ilaahay caafimaad sareecan oo degdega siiyo in gaadiidku ay ilaaliyaan socodka ay ku soconayaan xawaaraha. hadhow marka la ganaaxo iyo marka waxay dadku ashkatada barata laakiin marka dhibtu timaadun baa la ogaadaa. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. waa maxamed xasan sheekh maxamed jubba muuqaal maqalka caalamiga Kalson TV gobolka cagaaran ee Gabiley. siyaasi injineer Axmed Salaad oo aadan oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa maanta waxa uu ka hadlay xaalka siyaasadeed ee dalka. ugu horeyn siyaasi injineer Axmed Salaad oo aadan ayaa waxa uu si guud uga hadlay khilaafka ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. ra'iisul wasaaruhu ayuu sheegay in qas iyo fowdo dalka uu gelinayo marka loo fiiriyo tilaabooyinkii uu qaaday. waa sida uu sheegay siyaasi injineer Axmed Salaad oo aadan. siyaasigan ayaa sheegay in ra'iisul wasaaruhu uu yahay nin qadiyad kale ay ka muuqato marka loo fiiriyo habdhaqankiisa. waxaana ra'iisul wasaaruhu uu ugu baaqay in shaqadiisa ay tahay doorashooyinka dalka loogana baahan yahay taa inuu guto. sida ogtihiin maalmihii ugu dambeysay waxaa hawada isku shareeray khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. khilaafkaas oo aan runtii inaba aan sharciga aan waafaqsanayn oo siyaabo kala duwan dadku ay uga hadleen. marka runtii markii aan u kala qaadno arrimahaas dhowr qodob waxaan rabaa inaan ku soo koobo sida ogtihiin baa waddanku wuxuu galay marxalad doorasho oo xilligan ogtiin in xukuumaddii ka horreysay markii ay gaarsii weysay dalka doorasho qof iyo cod ah waxay baarlamaanku kala laabteen xukuumaddii hore kalsoonida. sidaas darteed ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble markii la magacaabay waxaa muddadaas kooban loo doortay inuu dalka gaarsiiyo doorasho maadaama waqtigu uu gaabnaa. sidaas darteed khilaafka hadda maanta soo laabtay oo dalka dib u hareeyey asal ahaan waxa uu salka ku hayo waxaan u aragnaa annaga inay tahay dana gaar ah oo runtii arrintaasna uu ka leeyahay ra'iisul wasaaruhu. ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble injineer Roble waxaa looga fadhiyay dalkan inuu gaarsiiyo doorasho muddada kooban
maadaama uu ku guuldaraystay doorashadii inuu dalka gaarsiiyo haddana uu khilaaf kala dhexeeya madaxweynaha dowladda federaalka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo. khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha u dhexeeya ma ahan khilaaf dastuuri ah ma ahan, waa khilaaf dana gaar ah ku qotama oo dhinaca ra-iisul wasaaraha ka socda. waxaana sabab u ah ra-iisul wasaaruhu wuxuu ku guuldaraystay doorashadii inuu dalka gaarsiiyo, amnigii inuu xasiloonidii mataqaana dalka inuu hore u sii wado, faragelintii uu ku sameeyey hay-adaha nabad sugidda iyo wasiirka amniga. ra-iisul wasaaruhu wuxuu ula jeeday arrintaas inuu waddanku uu qalqal iyo amni darro u galo. waxaana xaqiiq u ah xilka qaadistii wasiirka amniga oo iyo hay-addan taliyihii hay-adda nabad sugidda oo marnaba aan sharciga waafaqsanayn arrintaas. Soomaaliya maantay meesha ay joogto haddii aan si degdeg aan wax looga qabanin wuxuu ra-iisul wasaaruhu ku wadaa in dalkan uu ku laabto xilligii transitionka ku meel gaar inuu u laabto dalkan oo lagu soo rogo in Soomaaliya inaysan ismaamuli karin in caalamkii la tuso, sidaas darteedna waddanku meel gaar lagu celiyo. waana nasiib darro meel aan ka nimid waqti dheer ka hor inaan maanta dib ugu laabano. marka waxaan leenahay ra-iisul wasaare ku soo laabo waddada saxda ah. khilaafka kala dhexeeya madaxweynahan oo sharci darrada ahna sharci darrada aad ku dhaqantay ka soo laabo. arrinta lagaa rabay iyo waxa lagaa sugayna in adiga aad hirgelisa ayaa lagaa rabaa. dhanka kale siyaasi injineer Axmed Salaad oo aadan ayaa sheegay in dalka dhib iyo qalalaasyo uu soo maray xilligan siyaasiyiin ay wadaan in dalka dagaal uu galo. waxa uu sheegay in dagaal horey loo arkay loona baahan yahay dalka in la jiheeyo lana qabto doorashooyinka. waxaa jirta guux kale oo asagana maalmahan magaalada ku dhex jira oo ah waddankan inuu dagaal u laabanayo. war waddankan dagaal uma laaban karo. dagaal waddankan waa soo mariyay, qofkii ogaayaan waddankan wuxuu soo maray. maanta qof hadda yimid inuu yiraahdo dagaal loo celinana hadda waa qof mataqaanaa aan la socon waaqicigii iyo waaqiciga la soo maray iyo dalkan marxaladda uu soo maray. maanta Soomaaliya qabiilna u diriri mayso, kooxna u diriri mayso, siyaasad iyo waxaa la isku hayaa dastuur iyo sharci. sharciga iyo dastuurka ayaan lagu kala baxayaa. sidaas ayayna waddanka iyo maslaxadiisu ay ku jirtaa. ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa marka inaan ugu baaqo in aan aysan raacin dad mataqaanaa dana gaar ah ayaga mar kasta fiirsanaya inaysan maslaxadooda aysan mataqaanaa aysan u dhiminin, in si wada jir ah marxaladda maanta la joogo looga gudbo, sarreynta sharcigana loo hiliyo, waddanka iyo ka badbaadihiisana gacan laga wada siirto. khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaan ilaa hadda xal laga gaarin, waxaana kulamo kala duwan oo la qabtay lagu guuldaraystay. munaasabadda daafurka bangiga caalamiga ah ee Soomaaliya ee IBS Bank qaybtiisa Beledweyne oo lagu qabtay duhurnimadii maanta magaalada Beledweyne waxaa ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka, culimada, ganacsatada, xubno ka mid ah maamulka gobolka Hiiraan, wasiir ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. waxaana ugu horeyn munaasabadaasi hadallo kooban ka soo jeediya qaybaha kala duwan ee bulshada kuwa oo sheegay inay si mug iyo miisaan bale ay u soo dhaweynayaan xaruntan cusub ee IBS Bangi ee Hiiraan laga hirgeliyay. marka waxaan u mahad celinayaa bangiga maanta xafladda halkan ka dhigay oo bangiyadii hore ku soo biiray IBS. waxaan leenahay gacmo furan ku soo dhawow. bangiyadii hore gobolka uga furnaa waa walaalatihiin, waa walaal lagu soo biiray. anigoo ku hadlayo madaxa sektorka korontada rugta ganacsiga gobolka Hiiraan waxaan soo dhaweynaynaa lana shaqaynaynaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo bangiga IBS. maaragtay bangiyada sidoo kale ay ummadaanu gacan qabtaan, wax deymiyaan, xawaalada loogu soo diro, biilka ay ka qaataan. ayadana waxa weeye midkaan ku soo biirayna waxaan filaynaa sidaas iyo si ka fiican inuu asna u shaqay doono. Cabdinaasir Maxamed Raage madaxa IBS ee Hiiraan, Muumin Cismaan Maxamed madaxa barnaamijyada IBS iyo madaxa marketingka Shucayb Maxamuud Maxamed ayaa dhammaantood sharaxaad waxa ay ka bixiyeen adeegyada kala duwan ee IBS Bangi uu bixiyo iyo muhiimadda uu u leeyahay in Hiiraan laga hirgeliyo bulshada Hiiraan. waxaan rabaa inaan wax ka sheego inaan halkaan waxaan maanta u imaanay daafurka bangi caalami ah oo laga hirgelinayo magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. bangigaas oo la yiraahdo IBS ama International Bank of Somalia. waxaan idinka mahad celinayaa mar labaad ka soo qaybgalkiina si sharafta leh oo noo ajiibteen codsigeennii
anoo ku hadlayo magaca IBS gaar ahaan ahna madaxa operationka IBS kulay IBS wuxuu yimid halkan in uu ka qayb qaato horumarka magaalada Beledweyne waxaan rajaynayaa inuu tagi doono dhammaan degmooyinka gobolka Hiiraan sida ka warqabtaan bangiyada waxay qayb ka yihiin dhaqaalaha iyo horumarka wadanka uu sameeyo iyo dhammaan sidoo kale waxay qayb ka yihiin bilicda iyo caalamka in lagu xirmo qaybihiisa kala duwan bangiga IBS wuxuu ka qayb qaadanayaa sidoo kale horumarka bulshada asigoo mar walba qabanaya dhammaantiin waa salaamantihiin qof kasta maqaamka iyo magacu halkan ku joogo waxaan idinkaga mahad celinaynaa waqtigiina aan noo soo hurteen imaatinka xafladda daafurka IBS Bank ee gobolka Hiiraan gaar ahaan caasimadda Beledweyne IBS Bank waxay ku faraxsan tahay in markii ugu horeysay ay xarun ka furato deegaanada ama gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada caasimadda Beledweyne bangiga caalamiga Soomaaliyeed waxaa la daafuray sanadkii 2014 markii ugu horeysay baahida loo furaa waxay ahayd in wadanku uu helo bangi international ah uu awoodo inuu la tacaamulo guud ahaan bunuugta adduunka xaruntiisu weynna waxay ku taalaa magaalada Muqdisho bangigu wuxuu bixiyaa adeegyo fara badan adeegyada bangigu uu bixiyana waxay iskugu jiraan hadba qofkii baahidiisa waxaa kamid adeeg la yiraahdo personal banking oo loogu talagalay shakhsiyaadka waxaa kamid ah corporate banking oo loogu talagalay shirkadaha yar yar iyo kuwa weyn sidoo kale waxaa jira adeeg weyn oo bangigu baxay loo yaqaan investment banking oo loogu talagalay maalgelinta ha noqoto maalgelinta beeraha kalluumaysiga xoolaha sidoo kale ha noqoto baabuurta ama ganacsiga bangiga IBS sidoo kale wuxuu bixiyaa adeeg markii ugu horeysay Soomaaliya ku soo kordhiyay sidoo kale markii ugu horeysay ku soo kordhiyay deegaanada ama gobolka Hiiraan kaasoo ah adeega kaararka bangiga IBS wuxuu bixiyaa 2 kaar oo kala ah Mastercard iyo sidoo kale Visa card gabagabadii munaasabada waxaa ka hadlay gudoomiyaha degmada Beledweyne Cismaan Dhuubo Dhiciso gudoomiyaha xigeenka amniga gobolka Axmed Cismaan Cabdalle Inji iyo wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta Hirshabeelle Injineer Cabdikariin Cali Nuur waxay ammaan iyo bogaadin u direen madaxda IBS waxayna ugu baaqeen bulshada Hiiraan in shirkadaha adeegeeda ay ka faa'iideystaan IBS soo dhawaad waan leenahay soo dhawaad insha Allah hadii Ilaahay raado waa soo dhaweeyna waxa leenahay soo dhawaada dadka reeyiraan way u baahan yihiin horumar iyo ganacsi annagana ka maamulaa wada soo dhaweynaa kelmadda kaliya oo nooga bannaan waxay tahay soo dhawaada waxaan maanta aad ugu faraxsanahay farxadeedana aan la soo koobi karin maanta inaan ku arko magaalada Beledweyne ee caasimadda labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle inaan maaragtay haysano ATM machine-ka baahida loo qabo aad ay u fara badan tahay waxa jira dad badan oo qurba joog ah dad badan oo fiisa kaar haysto dad badan oo bangiyo ku leh maaragtay wadamada dunida dacaladeeda oo magaalada Beledweyne markay imaadaan aanan awoodi karin inay access u yeeshaan in lacagtooda la soo baxaan marka waxaan maanta u mahad celinaynaa maaragtay shaqaalaha IBS iyo company-ga IBS International Bank of Somalia inay gabagabadii munaasabada waxaa mas'uuliyiintaasi ay si wada jir ah xariga uga jareen xarunta cusub ee IBS bangi ee Beledweyne waxaana bangigan uu noqonayaa markiisii ugu horeysay oo Hiiraan laga hirgeliyo Maxamed Ibrahim telefishinka Kalsan Beledweyne akhbaaraadka caalamka oo maanta idin haynana waxa ugu waaweyn ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil oo fariin u diray dalkaasi Iran seeks to dominate the region and seeks to do so under a nuclear umbrella. Iran's nuclear weapon program is at a critical point. All red lines have been crossed, inspections ignored, all wishful thinking proven false. wuxuu ku eedeeyay dalka Iran inay doonayso inay ka taliso bariga dhexe iyadoo ka abuuraysa dalad nuclear ah gobolka wuxuuna ku adkaystay in Israa'iil aysan u ogolaan doonin Iran inay hesho hubka nuclearka ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Naftali Bennett oo ka hadlayay shirka golaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxa kale uu ka dhawaajiyay suurtagalnimada in Israa'iil kaligeed ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Naftali Bennett ayaa u sheegay golaha guud ee qaramada midoobay in
ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil Naftali Bennett ayaa u sheegay golaha guud ee qaramada midoobay in barnaamijka nukliyeerka Iiraan uu ka tallaabay dhammaan qadadka cas. waxa uu ku eedeeyay Iiraan inay doonayso inay ka taliso bariga dhexe iyadoo ka abuuraysa dalad nukliyeer ah gobolka, wuxuuna ku adkaystay in Israa'iil aysan u ogolaan doonin Iiraan inay hesho hubka nukliyeerka. ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil waxa kale uu ka dhawaajiyay suurtagalnimada in Israa'iil ay kaligeed wajihi doonto Iiraan, arrintaas oo uu dalkiisa marar badan ku hanjabay. Bennett ayaa yiri barnaamijka nukliyeerka Iiraan wuxuu gaaray heer biyo galeen ah, sidoo kale dulqaadkeena ayaa isna gaaray heerkii ugu dambeeyay. Tehran ayaa kor u qaaday barnaamijkeeda kobcinta nukliyeerka kadib markii Mareykanku ka baxay heshiiskii sanadkii 2015 ee xadidayay howlaha nukliyeerka Iiraan. wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay now waranagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an warbal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane oo duceeyay allay leedahay maxaan kursigu dareeyay siyaasad maxaan qorsheeyay midaan laaluush u quuray hadhowta maxaan isqoonnay artiyama waxaad ka tagtay khasaare maxaan u joogay hadhowtana qooma meeyey abdulla waliba dheegi jiray khasaare waa qabataa ninkii qamaar dheelo war kalamaanay waxaa la yidhi khilaafaadku goortuu dhex maray qaran mataalkeenna qaanuunka iyo siyaasadda markii la isqaniinsiiyey arrintuna qaraaraatay oo la isqanciyi waayey isxilqaanka kooxdii gashoo kala dab qaadaysay qorqor inuu qayb la jiray duul qabaa jira qortaada dheere lagu qoray cabaaryada markii aad xaggayga u soo qalloocisabay maliqda iqabata aan maqli jira qabiiro la taliyay ra'iisul wasaare Roble waxay dhaheen madaxweyne qoorqoor xalin maayo khilaafe dabin oo wax ka qoolay qoortayeen lagu gelin abdikuusow waa iska qoorta gareene ka dareenahe warmadaya waxaan maqli jiray qof waliba wuxuu qaban yaqaana loo soo qandimayaa war waxaa kaloo la yidhi qaan weeye ha qaadan qurux male ha qaadan war waxaa kaloo la yidhi qaran wuxuu istaagaa ama qiimo yeeshaa markuu xeer u qoran iyo qawaaniinba leeyahay qulna loogu toosaa war waxaa horay loo yidhi waxaaruhu sidaan qabo weligoodba qoorqabad biyo kuma qurquriyaan waysan oonayn maqasaba goobtayaal ya dheegi jari aryamadeeyo waxaad ka tagtay oo maanta howli joogta goodbye daw gacaalayaal geeskaa doontaan u qaata oo gamuuran gam oo gayaxan warnimayow laydinma warrami karo markii war laydiin bilaabo ayaad qariya buur la fuushiine waxaa la yidhi madaxweyne qoorqoor waxaa laga dalbaday gartii uu galay iyo wuxuu kala kulmay inuu ummadda u caddeeyo isaga laftirkiisuna mowqifkiisa caddeeyo warna miya usan wala ogayna maahine qoorqoor wasiiradiis iyo sidii ruuhaanti xasan sheegi jiray amal anka dhaa hadali walina areena madax dalkan ka sareeya iyo howli ku socod u haysanta war madaxweyne qoorqoor wariyaal badan buu ka dhex hadlay waxayna dhaheen madaxweyne qoorqoor laba caqabadood baa haysata dhinac qayb ka mida bulshada maamul goboleedkiisa ayaa ka cadaadinaysa oo waxay leeyihiin caddeen ninkii gardaran asaguna maadaamay ra'iisul wasaaraha isku hayb yihiin wuxuu ka cabsanayaa in lagu eedeeyo dhinac buu la saftay war adinkaa warka meeshaad rabtaan la aadaye marmarsiyahaasoo dhani waa soo xirmeen madaxweyne qoorqoor wasiiradiisii uu ka dhex hadlay waa kuwuu yidhi waawaantii waa ka baxlay kadibna waa tii laga dalbaday inuu caddeeyo waawaantu halkay ka socon weyday guddi axaddii loo xil saaray inay warcad ka keenaanna wuxuu u sheegayaa la yidhi inuu xanuunsan yahay oo uusan qaabili karin laakiin wakhti yar kadib waxaa la sheegay inuu qaabilay wafti uu hogaaminaya
jenaraal sayid fahad yaasiin saacado badanna ay shirayeen marka waxaa la yaab noqotay waanwaantii waa ka baxay iyo sakda dhexaan la kulmayaa dhinac ka mida warna miya weli eray idinjiisa oo islaamka dhonga aragayaan laakiin aan rabdiisa oo aagila gorode war anigu waxaan la yaabanahay dadka la yaaban qorqoro waanwaantii ka baxay inuu fahad la kulmo sababtoo ama mulkiiluhu warkiisa diidi karaa aryaadhaha abwaan barre maxamed fiidowna hadda ka hor wuxuu yidhi qalbigaagu dhalanteed qariya buurku saariye ninka qoysanayo waxba eesku kayn qori war cabdilla waxaad ka tagtay isu qabe aan loo qabin isla qallanba tahaye wax ma qariya aniguye nin qabkiisu lumiyo qardaa jeexayaa tahaye war waxaan maqli jiray siyaasaddu ninkii qaawiyaba waa ku qaraxdaa waranna waxaan maqli jiray waad qaboobiye quyar soo soco warwar ma haysiina waxaa maanta dalka yimid oo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha midba gaar ula kulmay madawiine urdugan ha kohay ustaad afaweerkii miyaa yimid warba muuse bixiba waa waanta ku soo biiray war big brother abiy axmed horta waxuu nooga maqan yahay war ma amiirkii qadar baa yimid aryaadhaha dhaxal sugihii sacuudiga ibnu salmaan miyaa yimid warkaasaan noo keeni filinkii laga bartaa laysku haystaaye war ma aamina jiirow baa soo noqotay war waa falanteed waxna laydinma sheegi karee waxaa yimid wiilow dhalay madaxweynaha yuganda yoweri museveni ahna taliyaha ciidanka yuganda jenaraal muhorsi muuse feentow soo dhowow ma la yidhihe war soo dhowayn cidna kama rabina madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha labadaba waa la kulmay cagtowna dhulka u dhuftaa la yidhi yarow kasa digtoonow madaxweyne macal ra'iisul wasaare miyaa ka dhacday war digtoonow xaaladdu waa dhaaftay wuxuu ku wargeliyaa la yidhi in haddii ay heshii waayaan ay la baxayaan ciidankooda dadka xogaha si faagfaagana waxay leeyihiin isla maanta wiilka museveni wuxuu la kulmay saraakiisha ugu soo sarreeysa amisom ee muqdisho jooga yaa kambaala akoon maa la soo celin rabaa warqabkii iyo karaamadii iyo sharaftii dawladdeennu ku faanaysay 4 sano inay soo celisay maanta ma wuxuu marayaa in hoggaankii qaranka wiil yari u caga jugleeyo war ummaddii tashi ways waa loo taliya lilaymi dheegleeda war yuganda warkaa inay soo waddo waxaan ku gartay maalin hore madaxweyne museveni wuxuu yidhi siyaasadda soomaaliya aydhis baa ku dhacay daawana uma hayno ciidanka iyaguna cudurka khilaafka hadday iska daaweyn waayaan lama sii joogi doonaan aryaadaha waanguur hadda kahor waxa uu yidhi gaashaanbuurta amisom madaxda geeshka ku ilowday waa guuri doonaan kuway gacalka moodaane goon adagta nimankii lahaasee dambey gurane gallad lama huran waa kuwa ciilku gaamuray waar 27 bishan oo maanta oo isniina ku beegan waxaa loo ballansanaa hadaljeedinta musharaxiinta aqalka sare ee somalilan hase yeeshee xalaa dheemad dhacay baa la yidhi waa lagu soo xabaala toosay yasiinku dheegi jiray siinka bilaawatay waxaana la yidhi madaxtooyadaa 8 oday u yeedhatay waxay ku wada hadleenna ilaahay baa og laakiin shaki weyn bay abuurtay kadibna sidaasaa hadaljeedintii ku baaqatay war madaxweyne farmaajo ayaamahan lagu eedaynayey doorashada inuu hor taagan yahay ayaa loo tirinayaa dibudhaca ku yimid doorashada somalilan cabdiraxmaan cabdishakuur oo mar kasta eedda madaxweynaha kula degdegaana wuxuu soo deliishaday habraacii somalilan cabdi xaashiye mahdi guuleed wada saxeexeen qodobadii ku jiray qaar ka mid ah cid kastoo ku shaqale doorashada oo lagu helo laaluush qaybin musuqmaansuq iyo eex in laga joojiyo doorashada lana horgeeya hay-adaha garsoorka marka wuxuu yidhi wixii lagu heshiiyey ha lagu dhaqmo war madaxda dalka garsoor cidiima horgayn kartee ma odayaasha u dhalmaday baa la horgaynayaa oday madaxweyne u yeedhay inuu ajiibo waa ku qasban yahay war odayaasha madaxweyne farmaajo miyaa u yeedhay mise fahad kala hubsada horta war adigu waa kala saarin kalama foge horta doorashada mas-uul diidan oo dib u dhigahayoon doonayn miyaa jira anugu cabdulla waxaan ka maqli jiray doorashadan dib loo dhigaa dana kalaa ku hoos dahsoon aryaadhaha samigay cabdullaaba haddaan yidhi nin diidiyo nin doonaba doorasha loo yahay diyaar nin diidiyo nin doonaba doorasha loo yahay diyaar war allah u naxariista waxaa magaalada muqdisho maanta ku geeriyooday cabdi murundi dheere ajakis oo ahaa jilaacaanoo soomaalida inteeda badani ay taqiinay hadda allah u naxariista ifka laguma waaree gaboosa waa runtaaba waxaa la yidhi ajashii dhammaastaa ifka joogi mayse waxaan uga tacsiyayahaa ajakis ehelkiisi iyo qaraabadiisi iyo asxaabtiyo saaxiibbadiisi iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan hadda samir iyo iimaan allah ka siiya asagana allah u naxariisto war ajakis allah u naxariiste bahda saxaafadda ka mid ou ahay bahda fankana ka mid ou ahay marar badanna isagoo nool ayaa malaha dad suuq la'aan u hayso
waxay facebook ku soo qoreen waa dhintay laakiin maanta ayaa waqtigiisu ku ekaay warwariyaha caanka ah Haaruun Macruuf muxuu soo soo bandhigay galka baarista miyuu ku soo qaatay khilaafka farmaajo iyo rooble war makiiskii ikraanow dadka ka dambeeyay soo bandhigay war dawladda miyaa mar kale tiri waa qarandumis war buugiisii inside al-shabaab miyaa Soomaali lagu turjumay war adinka baaris caafimaad u baahan in dhageysta war Haaruun Macruuf 16 bishii hore ayaa hooyadiis raaxa Sheekh Allah u naxariistay magaalada Jigjiga ku geeriyootay waxayna ahayd leeyahay umulsa samafal samayso dadka nugul u gargaarta agoontana si gaar ah isha ugu hayn jirtay asaguna hadda lacag $800 ayuu agoontii saxaafadda Soomaaliyeed soo gaarsiiyay maadaama hooyadiis agoonta xiriiri jirtana halkii inuu ka sii wada hawshaas u go'aansaday wuxuu ugu wanaagsan waladka saalaxay waalidkii u sameeyay wuxuu yahay dadkii uu xidhiidhin jiray waalidkiis inuu xidhiidhiyo waraabwaanguura wuxuu sheegay agoonta lacagta loo qaybiyay inuu u badnaayeen kuwii aabbayaasho shabaab dileen war wasiirka qorshaynta Soomaaliya Jamaal oo lagu eedeeyay inuu Puntland waxba u qaban 4 sano la soo dhaafay waa isdifaacay wuxuuna yiri qoondooyinka loogu talagalay maamul goboleedyada waxa la siixay xilligii madaxweyne Dani oo ay wasiirka qorshaynta marka Puntland wixii ka maqan eedeeda anigu ma lihiye Dani yaalo oo yiri xilligii Dani Xasan Sheekh bay ahayd kadib miyaan qorshe la samayn wasiir Jamaal weydii war kala maanay haday aqalka joog diiday iyo waabta gurigooda oo ay marya qafiif iyo duruuc ila taxuub xuuba durgufna soo tiraa ee wadada socod libaax leeydo raggo idinla fiirfiiriyaa dulku dhaco waalan faryareeyaha laga xiraa lana quraanshaay awal hore bal ruuxanta ma laga digtoonaado markii horeba ruuxanta ma laga digtoonaado miyuu yiri maya wuxuu yiri awal horeba ruuxanta ma laga digtoonaade daawadayaal intaas waxaan kusoo gabagabeynayaa war wixii caalamka inaga soo gaaray warka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cali Maxamed Yare tan iyo warka xiga inta aynu hawada dib u kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ogeysiis muhiim ah dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolada Sool, Cayn iyo Nugaal waxaa la ogeysiinayaa in Dr. Cali Macow Aweys oo ah dhakhtar Soomaaliyeed kuna takhasusay cudurrada guud